بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم قال تعالى حكاية عن نبيه عيسى المسيح والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقال تعالى حكاية عن نبيه يحيى والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بارك الله فيكم. waxaan ka cudu daaranayaa culimmadii mashaayikhdiga cilmiga badnayd baa joogta sheekhanaga sheekh maxamed guriceel baa aniga xataa sheekhaygii ah marka culimo horteed waxbaa lagu baashaa meesha caamadu ka dhihi jirtay weeye sheekh cafwan haddaan ka hormaray ilaahay intuu naga waafajiyo mawliidka nabiga calayhi salaatu wasalaam munaasabadaas waxa ayaantan ay dhagaheena ku badiyeen dad islaamna sheeganaya oo hadda annaga aanan gaala ku sheegi karin nabigiina laga celin laayahay oo salligiisii iyo markii magaciisa la sheego iyo mar walba uu iska dhawaaqa aad bay dhagahanaga waxay ugu soo celceliyeen nabi maxamed mawliidka ma ogay sida xufaadii islaamku sheegeen sida al-Xaafid ibn Hajar al-Casqalaani sheekha Bukhariga sharxa sida uu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi muslimku ku yaala muslimku waa kutubaha axaadiista ugu saxiixsan markii la yiraahdo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam muslimka iyo Bukhariga ugu saxiixsan muslimka waxa ku yaala nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yiri dhalika yawmun wulidtu fihi anigu maantay waa maalintii la idhalay haddii qof ku yiraahdo nabi maxamed dhalashadiisii ma sheegin waa beentiis xadiidka ugu xoog badan xadiidta sixaaxa abay ku taala markaa ka bacdi sidii qofku maalinta dhalashadiisa nabiga u weyneynaya qofkii xaflad dhigaya iyo qofkii soomaya iyo qofkii cibaado badinaya laakiin asal ahaan qofkii yiraahdo nabi maxamed mawliidkii ma ogeyn been buu sheegay saxiixa muslimka bay ku taalaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay dhalika yawmun wulidtu fihi waa carabi qof walba uu fahmi karo waa maalintii la idhalay buu nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii marka dhagaha lagugu shubo nabigii ma ogeyn iyo waxaas ma ogeyn bal xadiidkaa keliyahaaba kugu filanba xadiidku wuxuu ku jiraa fii qimati sixati marka axaadiidta la yidhaahdo xadiidka ugu xooga badan wey sidoo kale qur'aankaas aad arkaysid oo ilaahay noo soo dejiyey wax aan xikmadi ku jirin noogama qiseeyo waxay quraanku nooga qiseeyo xikmad baa ku jirta nabiyullaahi ciisa baa ilaahay dhalashadiisii quraanka noogu sheegay ciisa almasiix nabigii nabi maxamed ka horeeyay oo diintiisii la joojiyay oo diinta nabi maxamed lagu bedelay ilaahay wuxuu yiri wassalaamu calaya nabi ciisa laga warramay yawma wulidtu maalintii la idhalay sidoo kale nabiyullaahi yaxya وسلام عليه يوم ولد قرآن كنا وشيء دلش نبي عليه الصلاة والسلام مالنتي لدلي حديث صحيح بدن بوكشة إتاوح وقبح يا بارك الله فيكم كلمة مولدك نبي عليه الصلاة والسلام أيان وحي كشيغان sifaadkiisii sifaad aan ahayn bay isku dayaan inay ku sheegaan markaas waxaan rabnaa in sifaadkii nabiga wax un lama sheegi karo lamana dhamayn karo kulay sheekhuna qaar buu sheegi doonaa wax la dhamayn karo ma ahan wax yar inaan ka barakaysano insha Allah diinta islaamka kuma cusba in qof gaalihi nabi maxamed wax ka sheego
markii nebiga la soo bixiyeyba bay waxay yidhaahdeen waqaala alkaafiruuna haadaa saaxirun kadaab. gaaladii waxay yidhaahdeen kani waa saaxir beenlow ah oo been badan bay yidhahdeen. haddaa marka maanta aragtid qof gaal ahoo nebi moxamed wax ka sheegaya wax cusub ma ahan, ilaa markii diintu soo bilaabatay ilaa maantay socotay. laakiin wax lala yaabo ah oo islaamka hadda ka hor aan la arag, qof diinta sheeganaya oo muslim sheeganaya inuu nebi moxamed aflagaadeeyo unbaa nagu cusub maahane, qof gaalihii inuu nebi moxamed wax ka sheega naguma cusba. marka waxaan rabnaa sidii markii ay gaaladu wax ka sheegeen sidii waxyigu u tilmaami jiray. marar badan bay wax ka sheegeen qayb ka mid ah sifaadkii ayagu ku sheegeen iyo sifaadkii lagu sheegay oo laguna arkay baan insha allah wax ka sheegay. nebiyullaahi moxamed waxay qirsan yihiin gaaladu, bal muslimka iska daaya, qof madaxa oo la arkay qofkii ugu akhlaaqda badnaa inuu yahay oo ugu akhlaaqda wanaagsanaa. waxaana ay leeyihiin intay sawirro qaab daran oo madaxa wax ugu jirjiraan soo sawiraan. nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam diintii uu noo keenay, qur-aankii uu akhriyey waxaa ku jirta laa ikraaha fi ddiini, diintan qofna lagu qasbi mayo. qofku waa inuu maskaxiyan asagu uu ku qancaa diinta. laa ikraaha fi ddiini qad tabayana arushdu min alghay. wuxuu kaloo ilaahay uu nebi moxamed u waxyooday qur-aan haddaa maqashid wixii nebi moxamed noo akhriyey weeye. welidaabaa mas'alada culummadu ku ijmaacday waxay tahay qofkii nebi moxamed wax ka sheega oon si u dura, ilaahayna wuu beeniyey, qur-aankana wuu beeniyey, islaamkii oo dhanna wuu beeniyey. sababtoo ah dhammaantood nebi moxamed baa keenay calayhi salaatu wassalaam. walow shaaa rabbuka baa nebi moxamed lagu soo dejiyey, walow shaaa rabbuka la aamana man fi lardi kulluhum jamiica afa anta tukrihu nnaasa xataa yakuunuu mu'miniin. waxaa layidhi nebi moxamedow ilaahay hadduu rabo dadkoo dhan mu'miniin buu ka dhigi lahaa, laakiin ilaahay baa dadka ka dhigay qaarna gaalo qaarna muslim. afa anta tukrihu nnaasa, ma adigaa dadka ku dirqinayaa layidhi diinta? ma ahan, adiga ma ku dirqinaysid xataa yakuunuu mu'miniin. adiga waajibkii lagu saaray ka soo bax in dadkoo dhan muslimiin noqdaan adiga laguma saarinin. mar kale ilaahay wuxuu ku yidhi fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaydir baa layidhi. intaasi markay muqadamo tahay, nebiga calayhi salaatu wassalaam qof qaa'id ah oo wax hoggaamiye qofkii ugu xaliimsanaa buu ahaa. ilaahay wuxuu yidhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum, raxmad ilaahay qalbigaaga geliyey baad ugu jilicday nebi moxamedow. walow kunta haddii aad ahaan lahayd baa la yidhi faddan mid dabeecad xun oo qaliida alqalbi, qalbi adag, lanfaduu min xawlika, way kaa kala tegi lahaayeen baa layidhi. asxaabtii nebigaa waxay gaartay calayhi salaatu wassalaam, waxaa lagu sheegaa 124,000 124,000 bay gaareen. muslimiintii ka dambaysay asagana malaayiin bay gaareen. gaaladuba ha ka been sheegtee. haddii waxaa la yidhi aad qof dabeecad xun ahaan lahayd qofba kuma raaceenba, waa lagaa kala dareeri lahaa oodan xaliim ahayn. nebiganagu marka wuxuu ahaa xaliim buu ahaa. khaadimkii nebiga u khidmaynayey Anas bin Maalik baa la dhihi jiray. 10 sanaa nebiga u khidmaynayey buu calayhi salaatu wassalaam. hal mara uf ima dhihin buu yidhi, ima qurumaysan buu yidhi. wax aan sameeyeyna ima dhihin maxaa u samaysa, wax aanan samaynna maxaad u samayn weyday ima dhihin buu yidhi khaadimkii rasuulka calayhi salaatu wassalaam. sida akhlaaqdiisa iyo dulqaadkiisu ay ahayd. markii hadda ay dumarka iyo carruurta iyo buunbuuniyaan, nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi xadiidka saxiixa, wuxuu ku yidhi khiyaarukum linisaa'i, waxaa adinka idinkugu fiican oo idinkugu khayr badan kuwa dumarkooda ugu khayrka badan.
kuwaasaa idinkugu wanaagsan nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam zawjaadkii nebiga calayhi salaatu wassalaam weli lama arag nebi maxamed iyo xaaskiisoo isku dhaceen oo isqabsadeen oo iskala tageen lama arag bal xaasaskii nebiga calayhi salaatu wassalaam waa la dooransiiyey yaa ayuha nebiyu waxaa le nebigaanow qul liaswaajika waxaad ku tidhaahdaa baa le xaasaskaaga in kuntunna turidna alxayaata addunyaa wa ziinatahaa fatacaalayna umatickunna wa usarixkunna saraaxan jamiila xaasaska waxaad tidhaahdaa haddaad adduunyo rabtaan waa laydin fasaxaya haddaad nebiga iyo ilaahay iyo diinta rabtaanna waad joogaysa waxay doorteen nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam waxay ku doorteen akhlaaqdiisii iyo wanaaggiisii iyo ay ku doorteen gabdhaha yaryarkaa nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam isagoo madax ah oo ummad madax u ah oo sidaa ilaahay casiis uga dhigay qofkii ugu horreeyey oo gabdhaha yaryarka xuquuqdooda siiya buu ahaa xadiid saxiixa nebigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu ku yidhi man caala jaaratayni laba gabdhood oo yaryara qofkii koriya xataa tabluqaa intay qaangaaraan jaa'a yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wuxuu imaanayaa buu yidhi ana wahuwa kahaatayni aniga iyo asaga labadaa farood buu saa u ishaaray sidaasaan maalinta yowmulqiyaamaha oo dhibka badan baan aniga asagu isula imaanaynaa buu nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam xilligaa gabdhahaa la dulmin jiray xuquuq lama siin jirin noloshaa lagu duugi jiray nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam sidaasuu gabdhaha yaryarkaa u jeclaa taariikhdii nebi moxamed iyo islaamka inay ka been sheegaan bay rabaan oo yidhaahdaan annagaa dumarkan iyo carruurta iyo xaq siinay iyo masaakiinta muslimiintoon taariikhdii nebiga iyo sifaadkiisii aqoon bay ka faa'iidaysanayaan gabadhii nebiga gabdhihiisa ugu weynayd zaynabaa la dhihi jira nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam wuxuu dhalay 7 carruur ah 6 khadiijaa dhashay midna waxaa dhashay gabadh layidhaha maariyatulqibdiya si kale haddii loo qaybsho 4na gabdhay ahaayeen 3na wiilal 3dii wiil saqiir bay ku dhinteen oo ma qaangaarin 4tii gabdhood way waaweynaadeen way guursadeen gabadha layidhaha zaynaba waxaa guursaday ilaa abilcaas bay carruur u dhashay faadimana waa taqaaniin oo aalubeytka rasuulka calayhi salaatu wassalaam bay dhashay labadii gabdhood oo kale ummu kalhuum iyo ruqiyana sayidinaa cuhmaan ibnu cafaan baa guursaday oo isaga dambeeyeen sayidinaa cuhmaan binu cafaan dinnuurayn baa layidhaahaa ninkii labada nuur lahaa labadii gabdhood oo nebiga waxaan uga socdaa zaynabo gabadhay dhashay nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam asagoo tukanayay u imaanaysay gabar yar bay ahayd ilmahaasoo kaleoo dheelahaya ah nebigu calayhi salaatu wassalaam markuu salaada ku jiro markuu istaago wuu qaadanayay gabadhaas kor buu u qaadanayay markii uu sujuudana wuu dhiganayay sidaasuu gabadhaas yartaa calayhi salaatu wassalaam xilligaas ma jirinin qof madax ah ama boqor ah oo gabari u soo dhowaan karta ma jirinin sidaasuu gabdhaha u jeclaa nebiga calayhi salaatu wassalaam masaakiinta iyo agoonta iyadoo la xaqiro oo la dulmiyo oo gaaladii markaa joogtay aysan u oggolayn haddii aabbahood dhinto inay xuquuqdoodii siiyaan bal meesha xoolahaas lagu qaybsanayo aysan imaan karinin baa nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam asagoo ilaahay ka wada wuu xuquuqdoodii sugay xuquuqdoodii keliya ma sugiina wuxuu yidhi qofkii darajo rabaahi agoonka iyo miskiinka ha ka daya buu nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam asagoo weliba waxyi ah falaqtaxama alcaqaba waa aayad qur'aana ilaahay wuxuu yidhi nebi moxamed baa akhriyey waa sifadiisii haddii nebi moxamed aayad qur'aan akhriya waa sidii uu ku dhaqmahayey oo noo keenay wuxuu yidhi falaqtaxama alcaqaba qofkii raba darajo mucaqabadda meesha adag muu gudbo oo naftiisa ku qasbo markaasaa ayadii baa la sii qaaliyey waxa le wamaa adraaka malcaqaba horta caqabaddu maxay tahay la gudbahaya fakku raqaba ama fakka raqaba
أو إدعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة بالنبي عليه الصلاة والسلام wuxuu ka dhigay qofkii raba inuu sidiisaba darajo gaaro miskiin iyo agoon inuu quudiyo wa adraaka mafaku aw at'ama fi yawmin muqudiya layri qofkii raba yatiiman agoon muqudiyo waliba agoonka waxa ugu sii wanaagsan oo sadaqadu ku fadli badan tahay daa maqrabatin agoonka qaraabada ah oo ku dhow midba midku kaaga dhow yahay buu ka fadli badan yahay أو مسكينا ذا متربة أما مسكين أو دولك يالون وحبها يسن مساكين تي يا فقراء دي ليسي جري أو حوله هذا اللي قد عجري مركي النبي محمد إلهي سوب بحيي بي وحي النقدين قفك الدرجة رباه إنو كوكالا ترتمو وين نقدين وسيوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم بيقول أنيقا iyo qofka agoonka qofka kafaala qaada xuquuqdiisa kafaala qaada oo wax siiya jannada sida labadaas farood jannada maahan yaani yawmul qiyaamaha sida labadaas farood baan iimaanaynaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inta aayad ka hadlaysa ma la sheegi karo ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim kuwii agoonta zajrin jiray buu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay dadka ugu xun oo ugu liita qof kastoo miskiin ah xuquuqdiisii bannaanku saa u soo dhig dadka la yiraahdo garoobada waxaa bani aadamka caadi ah qofka dumarkaahi qofkii hore guurkeeda ugu horreeyay hadday weydo si kastaba ha ku weyday qalbigeedu wuu jabaa نبي محمد عليه الصلاة والسلام قلبي قودو صوكب حديث صحيح وحكيري الساعي على الأرملة قفك كشق يا أرملة قفك باهن يوال مسكين قفك مسكينك وحلمد يهي كالمجاهد في سبيل الله قف إلهي جدكي سكتش هذا وكالقائم وحلمد يهي بالقف إلهي عبادتي سأتاغن on نوغين وكالصائم الذي لا يفضل bal fiir xaquuqdoodii sidoo banaanka u soo dhigay hadeeray waxay leeyeen insaan maama iyo insaan baaban sameeyay 1400 oo sano ka hor buu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qalbigoodii soo kabo siirada waxaad ku arkaysaa wayan hadda waa halkaasi ku taala wayamshi macal armalati wa dhawul ubudiyya wuxuu la socon jiray dadka gabdhaha garoobada micigoodu socon jiray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam muxuu ka rabaa in qalbigoodu soo kabmo oo qofkii la arka asagoo maanta nabi maxamed la socday calayhi salaatu wasalaam qof walba uu jeclaanayo wal waa qofkii nabi maxamed la socday intaas ku filan inuu lacag siiyo iyo hadii nabi maxamed lacagba ma haysan Aisha waxay tiri 3 bilood baa noo dhalanaysay ama 2 bilood guriga nagana dab laga ma shidi jirin bay oo dad hadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lacag laakiin wuxuu sameyn jiray qalbigoodu soo kabi jiray وحكير حديث كصحيح عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة إله وحا وحير أنه الدنبق الدشة كساريا قفكي ضيعه لبضا تبرت الضرب حلي قاس نبي محمد الله صلى الله عليه وسلم يطلقن كي عربيد مركي لفيرشو هذا الدمر كوحي أهاين داد لغا حوق بدن يهي بي أهاين قفكا يتيم كاهنا دا سغابا اسكا أغون أبو سيداسي النبي محمد عليه الصلاة والسلام سفديسي مركي ليراهدو حروبتا يدقالك قفكا إحسان بدني مجري مركي ديبي جيرين النبي محمد عليه الصلاة والسلام oo istihza ku sameyn jireen oo wax kasto bani aadam lagu dhiba ay ku sameeyeen hatta waxay ku sameeyeen baasha shiimada la yiraahdo Soomaalidu waxay u taqaanaa mandheerta ama ilma ka dambaysi wax la maqaan markuu sujuuday nabiga kaleey salaatu wasalaam dhabarka ka saari jiray markuu sujuudo dhagax bay madaxa ka saari jiray dadkii sidaa u dhibay nabiga kaleey salaatu wasalaam markii Ilaahay ka adkaysiiyay Makka markuu qabsaday oo ayagii wax carara iyo wax qalbigoodii jaban noqday iisoo qabqabta waa ka aarsanaya nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ma dhihinin wuxuu yiri maxaad iga malaysanaysaan
way baqeen marka dhibkay samayn jireen way ogaayeen akhun kariimun wa ibnu akhin kariimin walaal fiican baa tahay dad wanaagsan baa ku dhalay bay yiraahdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri idhabuu fa antum ad-dulaqa iska taga waa layn cafiyey wuu ka adkaa way dhibi jireen mustahzi'iin baa la dhihi jiray xilmigiisu saasu ah meesha hadda ay rabaan diintanada inay ka khaldaan oo gaaladu ku soo darto markii dagaal la yiraahdo nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka qof ugu geesiyoon buu ahaa asaga iyo asxaabtiisii sida sayidina Ali ibn Abi Talib iyo Zubayr ibn al-Awwam iyo Hamza ibn Abdul Muttalib iyo fawaris rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam laakiin dadka militariga ah iyo dadka hubka sita iyo dadka la dagaalayay la dagaali jiray markii cadaalad la yiraahdo nabigu calayhi salaatu wasalaam xataa qofkaad la dagaalsan tahay oo cadaawadi in ka dhaxayso markay qadiyadu idin ka dhaxayso cadaalad ha ka tagininu walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu bi nabiga calayhi salaatu wasalaam cadaalad sameeya qofkii wuxuu ahaa ugu cadaalada badnaa intii la arkay barakallahu fiikum hadday marka gaaladu nabiga calayhi salaatu wasalaam ay sifadiisii dabcaan in idinka bedelaan axaadiidta iyo qur'aanka sifaadkiisii ka akhrista halkaas sifadii nabiga ka barta qofka qof ugu xaliimsan buu ahaa qofka qof ugu dulqaadka badan buu ahaa qofka xaqa aan dadka la duudsiiyey xaqa u doodu ahaa waxa wax lala yaaba barakallahu fiikum intaasaan ku dhammaynayaa wax lala yaabo waxa ah qof muslim sheeganaya inuu nabigiisii aflagaadeeyo oo wax ka sheego waxa jirtay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam jir ahaan marka la yiraahdo qofka qof ugu nadiifsan inuu yahay waxa jirtay markuu dhidido in miski laga dhigan jiray iyo catar dhididkiisa calayhi salaatu wasalaam waxa jirtay timihiisaas asxaabti si tawaatur ah asxaab badan inta isku timid inay inta xiirteen timihiisa midba intii ka soo gaartay ay qaadatay waxa wax lala yaaba qof muslim sheeganaya inuu yiraahdo nabi maxamed in jir buu lahaa wax lala yaabo markaan fiirshay labada aflagaado gaalada nabiga aflagaadeysay iyo kuwa muslimka sheeganayo nabi maxamed aflagaadeeyay markaan isku fiirshay wax badan waxa ila qaab daraatay aflagaadada kuwa muslimka sheeganaya ay nabi maxamed ku sameeyeen calayhi salaatu wasalaam laanu nabi maxamed asxaabtii tawaatur waxa la yiraahdaa waxa asxaab aan been ku kulmi karin iyo taabiciin aan been ku kulmi karin ay wariyeen waxay sheegeen jirkiisu inuu nadiif ahaa tintiisu inuu nadiif ahayd meel walba inuu udug ahaa bay sheegeen sidaa diintii iyo aadaabtii nabi maxamed oo tawaatur lagu soo gaartay qofkii muslim sheeganaya oo yiraahdo jirkiisa in jir baa ku jirta barakallahu fiikum iska fiirsha mas'aladaasi waa kufri diinta waa looga baxaya aad bay khatar u tahay markaas caamada muslimiinta dad kamida waxa lagu qanciyay xadiis baa la sheegay xadiiska ay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka yiraahdeen waxaasa ku jiray falyi baa la yiraahdaa falyiga waxa la yiraahdaa markii aad timaha kala baxbaxsato oo shanlaysato sidaas oo kale markaa timahaaga tiraahdaa la yiraahdaa ama maradaada hadda qamiiskan aan ku fadhiyo markii uu saas u jajabo Aisha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saa ugu fidin jirtay intaasay nabi maxamed ka galeen calayhi salaatu wasalaam mutarabbis baa la yiraahdaa qofkaas oo kale waa calaamada munaafiqiinta haddaad rabto qofkaas meel aad ka gasho aad rabtid inaad meel ka soo gashid ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay fa amma alladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabah dadka qalbigooda zayqu ku jiro oo xaqi ka leexday wax shubha ah oo caamada ay ku khaldi karaan bay fiirinayaan qofkii inta xadiidka falyiga ah oo nabi maxamed timihiisa sidaas la lahaa oo way qurux badnaayeen la isku duuduwahayay baa falyi la yiraahdaa maradiisi oo Aisha saa u kala bixinaysay baa falyi la yiraahdaa qofkii kaaga fasira nabi maxamed in jir baa ku jirtay horta asaalatan mas'aladu waa gaalnimo qofkii nabi maxamed sifaadkiisa ku xad gudbaa
waxba annaga hadda gaaladaani gaar noogama dhowo qofkii diinta ka baxay waa qof diinta ka baxay masaladaa iska jira baarakallahu fiikum muslimiin badan oo la kulanay waxay leeyihiin xadiid baa la akhrinayaa wadaadkaani xadiid buu sheegayaa xadiidkaasi macnihiisu waa bannaanku yaallaa fali annagaanaa soo marnay adigoo intaad u timaaddo gabar qaraabadaada ah bay markii timaha ama boorkaaga bida ama caleen bay ku leedahay ama abti ama adeer timaha saas kuu leedahay taraxum sidaasaa xadiidka fasirkiisu ah baarakallahu fiikum masaladaa iska jira inaan dheereeyo mar raba waxaan ku soo khatimayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii gaaladu ay wax ka sheegeen innaa acdaynaaka alkawthar baa ilaahay yidhi khayr badan baan ku siinay baa ilaahay yidhi khayrkaa badan culummadu tafaasiir badan oo ilaa 20 gaaraysay geliyeen waxaa la siiyey xawd nebiga calayhi salaatu wasalaam xawdkaas adilada ku soo aroortay waa mutawaatir xawdkaas waxaa laga cabayaa inta markii inta qabuuraha laga soo baxo oo qabuurihii lagu oomo oo dhibaato iyo rafaad ay ka yimaadaan oo qofkii dhimasho soo maray oo mowd soo maray oo mugdigii qabriga soo maray oo qiyaamihii uu yimid siraadkii jahannamo korkeeda in la maro iyo miisaankiina u hartay markaasaa nebi maxamed waxaa la siiyey wax la yidhaha xawd qofkii jeclaa iyo qofkii rumeeyey xawdkaasuu hal galaas ka darsanayaa weligiis oomi mahay markii gaaladii ay wax ka sheegeen waxaa la yidhi carruurtiisii markay ka dhimatay awlaaddii bay waxay yidhaahdeen waa abtar bay yidhaahdeenoo waxba ka hari mahayaan markaasaa ilaahay tasliye wuxuu ku siiyey waxaa la yidhi midkaan abtar ku lihi asagaa abtaroon waxba ka harayni adiga khayr baa kaa haraya xawdkaasaa kaa haraya asxaab badan baa kaa haraysa ambiyada qaar baa waxaa la imaanaya markii la soo xashriyo 2 3 qaar baa xataa hal la imaanaya nebi maxamed malaayiin baa la soo baxaysa marka waxaa la yidhi asagaa abtarahum waxba khayrihii ka haraynine adiga xawdkaasaa kuu diyaarsan webi jannada ku jiro asna kawthar lagu fasiraa kuu diyaarsan asxaabtaadii iyo axbaabtaadii ku jecel oo ilaa yowmulqiyaama oo malaayiin ah kuu diyaarsan intaasaa lagu siiyey 3 wiil oo kaa saqiirtay waxba kaa dhibi mayse fasalli lirabbika bali innaa acdaynaaka alkawthar fasalli lirabbika wanxar inna shaani'aka midka adiga kaa caraysiiyey buu yidhi ilaahay huwal abtaru asagaa daba go-anoon wax khayri ka haray ama abijahal dheh ama gaaladii midkaa rabta dheh waxba kama harinin wax sheegahaya lama arko dad jecel ma jiraan qiyaamo markii la taga naar baa u diyaarsan nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam fii aqdaari alardi meeshaa tegtid annaga hadda intaan waaba ku yartahay hal mawliidaha 20 kun iyo 1 milyan isugu imaanaysa markii xayaatadan laga baxana xawdkiibaa u diyaarsan markii laga sii gudbana waxaa u diyaarsan jannadiibaa u diyaarsan marka waxaan leenahay qofkii wax kaa sheegay oo ku aflagaaday nebi moxamedow sidii ilaahay yidhiba huwal abtaru kuwa hadday rabaan gaalaha ahaadeen muslin ha sheegteen ayagaa injir iyo qashin iyo wasakhoo dhani ku jirtaaye adiga ilaahay baaba ku dahiray oo udug baad ahayd dhididkaagaa miski ahaa akhlaaqdaadaa wanaagsanayd ilaahay wa innaka lacalaa khuluqin cadiimin buu yidhi akhlaaq weyn iyo dabaacad wanaagsan baa ilaahay ku siiyey anigu hadda waa iska barakaynahayey shaaiqdii iyo culummadii waa idiin dambaysaa intaasaan ku dhammaynahayaa wixii aan khalday ilaahay iga cafiyo wixii aan saxayna ilaahay ha nagu wada anfaco asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu